maamo baa 10 neef oo ari qabti maamadii baa la yiraahdo mandad ayaa ugu soo degay xaradii riyaha galeer nin kasta marka waa taqaana bargii hore diintu waa iska yareed fahmade waxay u tagtay wadaad yar gardhuub oo macna hadda Madiina ay meelahaas ka soo akhristo koon dhaalahan walba halkii mandad ayaa xaradii xeenta ku soo degay wadaadii oo waran bay tiri waxa dhaaf waa shimbir caadi u yiri maamada xoogo moraalka ka jabtay kuwii hore wadaadii hore akhyaartii hore ayay dooratay Sheikh Abdulqaadir Jaylaani iyo kooxdiisa aadi wasiiq waxay tiri mandad maanta xaradii soo dhex fadhiistay sheekh waran abshir u yiri warkay doonaysaa kaas waa fahmaysid abshir wanka ceenkaas oo midabkaas leh xogoon xaantu la yar socdo waa yar faansin horta galabta gowraca siri horta xogo wardiha la akhriyo wal gowracay meesha la iskugu imaadi kii la haysaaki mandadku waa shimbir caadi iyo kii abshir yiriyo idinkiisa lagu qaliyaa haday hilibki saxanka iskugu imaadi shiishi kulul asagoo si gaadi haaya wadaadkii gardhuubka ahay ayaa Sheikh Abdulqaadir Jaylaani ciidankiisa darkay gacantu dhaxal ka qabtay asarkina inaad ka dhigta mandad shimbir caadi shiishi kululna aslaalta taas isku mehelaysid jooju yiri walaalayaal waxaan leeyahay maanta waxaan abshir u wadaa CS Ducaale fursadaas Ilaahay nasiiwaa nama ceebeynin MB laga soo doortay Gaariso ahaa wuxuu ahaa afyeenka baarlamaanka leader of majority xilligu ahaa kadib ayaan laanahay afyeen baarlamaan waa laanahay shaqadiisu uu qabsaday nama ceebeynin ninki kadib waxa laga dhigay CS defense markuu noqday qarax maalintaas aan ugu dambeysay nabad baan ku sugunahay ninko uu macnaha uu maqan mooyaane nabad baan ku sugunahay haddana waxa laga dhigay wasiirka caafimaadka war wixii wareerkii shaay iyo waadajay waa shaqeeyaysaa ilaa ay kordhiila laga qaadaya waxa way walaal ninkii magacaadu muujiyo waa loo duceeyaa ducaale waxaan ku leeyahay gabdhaha Gaaris waxay dhihi jireen ducaalowna daadahay marka meesha waa dhaafay afyeen Soomaaliya Djibouti Ethiopia Kenya inta Soomaaliya joogta ada afyaan dood waxay gaartay anina fahantay aamus wax liigu guroon yar qayliyos asigana hor socdo xilli ajuuraan SPS laga dhigaa la gaari Sooma waxaas kulli waadada la ducaalo waxaan ku leeyahay howsha saas ku sii wad khayr Allah ku sii waxaasna Allah ku sii nin aqil asagana gabana ahaa jiri سنة هذا نك روبا nin ilmaha ma سنة روبا iyo ducaale iyo gafanaha wajeer waa saddex gaal iska cilis saddex ximintooda qaadato waay anina askariyaan waa daba taagana waxaan leeyahay saddexda walaalayaal Soomaali horkaca mideeya gaalka madaxweynaha waxaan la qabana on President Ruto. We had one big challenge since independence. Acquisition of official documents, IDs, birth certificates, passports. We are grateful. The President, William Ruto, is the first president to remove these bottlenecks, and we can access IDs.